okay waxaynu maraysay in liibaan guriga gabadha oo dhowr jeer ku soo laabtay mar walbana ay dhihi jirtay dambiga ay ga gashay nafsiga ay ga gashay hantida ku geysay hantida darteed ayaa saan u yeeshay mar walba guriga imaadane sida ay ku dhihi jirtay wiilka waxa sabarsi jiray maamada gabadha dhashay Caaisha hooyadeed ayaa sabarsi jirtay oo dhihi jirtay maando iska bax inta walba wax kale aysan xumaanin orado iska tag oo gurigaaga aad 3 bil marsaas lagu joogay oo bil kale ee baxday jaamacadda waqtiga lagu ballamayna ka dhiman tahay 2 bilood wuxuu warqad u soo qoray Caaisha oo ku leeyahay aniga safaraan ahay waxaan u socdaa Djibouti waxaan rabaa Djibouti inay iga daba imaato haddii aadan rabin wax walba oo adiga naga dhaxeeyay inay meeshaas ku hakadaan ama aniga qalad sax wajiga ay iga saartid ama qaladka ay iga galaysid ay iga dhaaftid ama dambiga ay iga galaysid ay iga dhaaftid warqad wuxuu ugu dhiibay wiil walaalkeeda oo ku hooyo ah oo saaxiib dhow ahaayeen liibaan oo isla soo jireen kadib wuxuu safar shaqo u aaday Djibouti oo shirkadda dad kala tirsan iyo asaga ay safarkaas isku raaceen safarkii markii ay tageen 2 maalin kadib markii warqadda gabadha ay u tagtay gabadhii ayaa soo baxday oo Djibouti u tagtay wayna wacday waxay dhahday liibaan waxa jooga elaboorkayga Suudaan oo aamini waaye wuxuu dhahay waa aamini waaye in ay joogto ay ila joogto aniga dhan shock iyo farxad isku jiro ayaa qaaday oo dhahay waaba cabsadayba inaa elaboorka doonaan ka cabsaday waxaaba ka cabsadaba inuu gaari dardara ka cabsaday sadarteed wiil saaxiibkiisa oo meesha kala shaqeynaayo wuxuu dhahay gabadhaas u tag ii soo wad sidii ay gabadhu ugu imaatay waxaana tiri 2 mid kala dooro in hadda i guursato in wax allaale wixii naga dhaxeeyay waxba kama jiraan ka soo qaadid ina hadda i guursatid ina waxba jiraan ka soo qaadid wix allaale wixii naga dhaxeeyo gabadhaas iska raacdid waa ogahay waa iga qurux badan tahay lacagna way haysataa naag isku filan waaye ina ayada raacdid ilaa hadda ayada daba socotay markaas wuxuu yiri hadda horta kuma guursan karo hadda meeshan iskuma guursan karno dhahay aniga guurkaaga ma diidani inaan ku guursadana ma diidani xaaskayga inaan noqotana waa jeclahay laakiin waxa leedahay reer leedahay hooyo aaba ka dambeeyo walaala leedahay hooyada iyo aabaha iyo walaalaha aniga walaalahaygi ciideedii waa hooyadii aabahay waay inaan xumeeyana ma rabo oo wax qaldan aniga ku dhaqaaqo sadarteed hooyo aabo aan la tashano oo barnaamijku u sheegno waxaan jeclaan lahay aan markaa laabano inaan xaq isku guursano maba sugayay dhahday marka wuxuu joogaa 8 bari kadib waxay la hadashay aabaheeda soo wacday waxay dhahday aabe inaan guursadaa rabaa waxaan guursanayaa wiilka asaga ahay liibaan waxaan isla joognaa Djibouti hadda ii diido iyo haddaad iga yeesho labadaba aniga guursan rabaa hadda marka waxay dhahday as xumaanin as waji xumaanin ina ay ogolaataa rabaa wiilkaas inaan guursadaa rabaa odagu wuxuu dhahay marka hadii asaas tahay meeshaas ay kaamarayso waa fasaxan tahay baan dhaw guursan kartaa dhahay maamadii barnaamijka maqashay waa soo wacday waxa ku tiri hooyo gabadheedii aabaha nin magaalada Sumcad iyo magac kula waaye aroos weyn inuu ku dhigo rabaa hada liibaan nin oo title xun ma ahan nin meel fiican taagan waaye aabaha uu ku ogol yahay magaalada marka ay maataan labadiin is guursanaysaan magaalada imaada 10 bari shaqada soo dhamaato kadibna magaalada imaada kadib waxay ku tiri ani 10 bari ma sugi karo liibaano hada i guursanayso hada i guurso ama walaalo iska ka fasax faraha iga qaad mar dambe yaan isku imaanay marka wuxuu ku yiri amarka waalidka la qaata fiican way ka tagtay hotel ay deganeed oo laabatay oo maalmo ay deganeed hotelkii ugu daba tagay wuxuu ku yiri wax alaala wixii aad ku taliso aan qaadanaa wax alaala waxa ay dhahdana waa yeelaa haddaad ogoshahay hadda inaan ku guursado waa ku guursanaa haddaad dhahdo laabo aan xamar isku guursanaynaa xamar jeclahay waa isku guursanaynaa haddaa warshuba u laabo idhaahda xataa waa u laabanaa dhahay talada adiga iska leh marka waxay ogolaatay in 10 maalmood ay iska sugto qaab dalxiis ahaana laakiin waxay ku xirtay shuruud kale ah in uu iska dhaafo shaqada wuxuu warqad codsi u soo diray shirkadii wuxuu ku dhahay bil fasaxa u baahanay family problem ah haysto bishaas fasaxa la siiyo way ka diideen shaqadii ayuu iska ruqsiyay 10 maalmood kadib markii ay dalxiiskoodii wixii soo dhameysteen waxay imaadeen magaalada Muqdisho markay imaadeen gabadhii iyo wiilkii meher ayaa loo sameeyay wayna isguursadeen meherkoodii markuu dhacay kadib waxay dhahday ma raba in aan mustaqbalkaaga ka hor istaago maadaama hadda ay meersatay master waa aadi kartaa
kadib sidii ayuu masar ku aaday Malaysia wixii qarashaad oo ka dhinayna waxa ka caawiyay cid qoyski gabadha uu ka qabay ayaa ka caawiyay sababtoo ah qoyska si toos ah uga mid noqday wuxuu maqnaay 2 sano oo master ah sanad kale oo dheeraad oo saddexaad intaas gabadha uu isla soo hadlayeen mar walbana ayadana da'deeda ku sii kordhaysay aabaheed iyo hooyadeed waxay garwaaqsadeen marka u dambeysay in wiilkan gabadhan aysan sugin oo ay ka furaan wiilkii email u direen waxay ku dhaheen waxaan rabnaa gabadheena inaan noo furto maandhow wuxuu dhahay aniga waxa meesha ugu daahay oo sanadka saddexaad ugu dirsaday ma ahan ina gabadha kas uga maqanahay ma ahan gabadha oo soo socda xaaskeyga waa u imaana wax yar ay dul qaadato ayadana waa loo diiday inay la hadasho aabaheed gabadha markuu la hadlayo wuxuu ku dhahay far duca ama far habaar qaado gurigan dhex fadhi ama far duca qaado wiil aan ka magac xumay liibaan shaqeysta magacna leh qaraabadana ah oo adeerkeed oo dhalay ayaa kugu daray ku dhahay dawladda ka tirsan farti ducee iska qaadatay odagii ayaana ku dhahay gabadheedu kuma sugi karto emailkaas u diray jawaabtiisi wax fiiriyay iyo wax daba kacayna ma jirin kadib gabadhi sidii ay ku guursatay wiilkii hal wiil oo dhashay kadibna wiilka ayuu ku furay liibaan sanado kadib 6 sano kadib wuxuu ku soo laabtay magaalada wuxuu bilaabay inuu ganacsi ka abuurto magaalada oo shirkado u furto iskuuleedna magaalada oo ka furto oo waxbarasho lagu barto kadib wuxuu raadiyay gabadhi qoyski oo gurigii hore ee degaan jiray ka guureen oo guri kale ay degeen gurigii kale soo helay gabadhii uu raadiyay wuxuu u tagay gabadhii oo heysata hal cunug garoobna ah cunuga lagu furay guriga hooyadeedna dhex fadhisa markuu saas u tagay oo arkay gabadhii cunug haysato ama kaag ayaa la noqotay liibaan wuuna ka naxay durbadiiba waxay ku tiri adiga oo ku sugi waayay jawaabna waa ka heli waayay waxaana igu dhahday in haddii aadan isugu karin waa fasaxantahay walaalay aniga shaqooyinkeyga iyo wixiga aan iska sii wadanaa hadalkaasna hadal asaga uu dhameeyay laakiin waxay ahayd hadal qoyska gabadha Aisha ay sameeyeen oo ay ka sameeyeen ayagoo fiirinaya gabadhooda mustaqbalkooda ayaa waxa u dambeey doona maadaama ay diidayba fakti hore in ay wax barato oo waxbarashada heerka masterka ay dhameysato ninkana suga gurigana dhex fadhina markay ay dhahday oo sanado ay fadhisay cid qorshahaas ay keeneen wiilkii iyo gabadha qaabkaas qorta la isku galiyay marka waxay dhahday anigii noocaana noqday marka waxa kugu talina walaalo hadda waxa tahay nin oo hanti laha tahay cid ku hor istaagi karta malahan ana guusha rabay hada guul gaarta ana guusha rabay waa gaartay hadda waxa kugu talina gabar yar in iska guursatid reer ay yeelatid reerkaaga dhisatid anigu wuxuu dhahay habeenna kala ma rabo maalinna ma rabo adaa ku raba adigana ku guursana wiilkaagana ana kugu qaadanay oo yaraan wuxuu isdhahay xataa markii ama ayadoo la qaba u tagay ama ayadoo la qabino cunugaysan u tagay gabadha hami ka lahayd oo ayadoo cunug haysato guriga hooyadeed ugu tagtay waa wax naxdilna waay hadda liibaan iyo Aisha waa qoys waay magaaladii degan yihiin waa reer ganacsato ah waay oo magaalada laga yaqaano qisadoodana ogolaaday in la baahiyo laakiin magacyadooda dhabta ma aha liibaan iyo Aisha ee magacyadooda waxay naga codsadeen inaan qarino maadaama ay ogolaadeen qisadooda in la baahiyo qof alaala qofkii qisana la soo wadaaga ama ogolaada in magaciisa lagu baahiyo ama ogolaanba qaabku raba ay ugu baahi doonaa insha Allah fadlan hadaa ku cusub tahay YouTube channel keena subscribe saar gambalaalkan rukumo si aad ula socoto muuqaalada xiisaha leh aan soo gelino ma santiin